السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحالي راها أنيقو عدنان إسماعيل حرسي وكتر سلورك بنيرتك أبوي تيوي عال يقول بتشوكا ما أنت وحنا هم بنيانيا مدة إسلامك مركز تبعدونك كتشوغان هي مدة وحالي راها عرفت ولن هي مدة صومالية مركز تبعدونك كتشوغان دافي هذا iyo ummadda gabooye ee meel kastaba iyaguna daafaha ka jooga waxaan hambalyaynayaa dhalinyarta urka GYR ka shaqeeya rag iyo dumar waxaan ku leeyahay alxamdulilah sanadkan waxyaabo badan oo isbedelay baa jira oo muuqda laakiin sabir baa loo baahan yahay baan la talin lahaa waxaa la talin lahaa dulqaad baa loo baahan yahay waxaa la talin lahaa inagoo ismaqalna oo isdhegeysana inagoo is-ixtiraamna inagoo kala dambeyna inagoo aanay isku mashquulin inagoo aan ku mashquulno danta ummadda gabooye meel kastaba adduunka ay joogaan danta da-da yar danta dhinaca tacliinta danta waxaa la yidhahaa dhinaca siyaasadeed waxyaabo badan ayaana sugaysa marka alxamdulilah sanadkan horta waxyaabo badan oo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda gabooye u muuqda aan qabanay ayaa jirta taasina waxay ku timi dhalinyarta xilka saartay iyo mas-uuliyadda saartay rag iyo dumar ayaa maanta guulkaa leh alxamdulilah oo mahad leh marka waxaa la yidhaahaa waxaan oran lahaa haddaan doonayno wadnimo haddaan doonayno horumar haddaan doonayno intaan meel aan gaarno waxaan oran lahaa laba qaybood baa la rabaa intaa lagu dhaqaaqo qayb ah dadka soomaali gudaheeda jooga intay dhibaatadooda iyo daqadka iyo waxyaabaha laga hayo iyo noloshay ku nool yihiin intay noo soo gudbiyaan dadka qurbajoogana waxaa laga rabaa intay dadka masaakiinta ah ee maanta u baahan ee ilaahay kabacdi adni aana haysan xukuumado aana meesha ku haysan dowlad matasha hadday dhibaata maanta u timaado nin gabooyaan cid u dhaqaaqaysa aan ka yar ma jirto innakaa u ah dadkaa soomaaliya jooga difaacoodii innakaa u ah dadkii u hargeeyey innakaa u ah dadka maanta u dhaqaaqi lahay markaa waxaan ka codsanayaa nin kastaba oo qurbajooga ah mas-uuliyad weyn intuu saaro taasoo ah meel kastaba adduunka aad ka joogtid qurbajooga waa in isku gacmo aa noqotiin isfaritiin si fiican aad isdhex geshiin aad ka tashatiin ummaddiina soomaaliya yaa u maqan nin kastoo qurbajooga taa su-aashaan ka isweydiiyo anigu inagu dheereen maayo maanta waa maalin ciida laakiin waxaan jeclaa intaan ilaaho GYR alxamdulilah maanta heer buu gaaray waxaanan jeclahay dhalinyarta iyo gabdhaha ururkaa ku jira ee maanta ummaddaas iyaga ayaa qurbaha u joogaan intay dulqaad isku yeeshaan intay iska daba shaqeeyaan ay joojiyaan intay gurubyadan badan iyo waxyaabo badan kala joojiyo oo meel kaliya laisku shubo oo ra'yi iyo mabda la yeesho oo aanay noqon dhibaatadanka soomaaliya naga haysoo kale 15 suldaan baa leenahay suldaan kastaba wuxuu doonaya dariiqadiisa intuu ku dhaqaaqo marka inaku marabi ururaheenan qurbajooga jooga intay saa ku dhaqmaan waxaan doonaynaa ururo isku hadaf ah isku mowqif ah isku mar wax diraya isku mar wax qabanaya magac gudoomiye amba magac ummadaada ayaa ku siin karta ma aha qof amba ma aha aduu inta isku magacaabtid ummadaada waxay ku aqoonsato mooyaan baa aakhirka marka dambe ay noqonaysaa markaa dulqaad isku yeesha iskaashada baan oran lahaa waa maalin ciida sanadkii hore saas oo kale
barnaamijyo badan boo soo dhignay cid noo joojin weydey laakiin sanadkan waan ku guulaysanay alxamdulilah. taana waxaa keentay waa sabarka iyo dulqaadka badan. sabar iyo dulqaad iyo ismaqal, intaas maqalno ayaa la rabaa. haddaan labada aan la heli waayo been baa gawayo sheegaysaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.